internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba qodobada aan barnaamij ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah xiisad colaadeed oo u dhaxaysa Somaliland iyo Puntland oo ka taagan deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool. madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya oo xariga ka jaray garoonka diyaaradaha ee magaalada Garowe oo ay ku baxday malaayiin dollar. in garoonkan maanta ka furan halkan ay ka wada qayb galeen guud ahaan shacabka reer Puntland, ganacsatadooda iyo culamadooda iyo salaadiintooda iyo cid walbaba ay wax ka geysteen. xeerka ka dhanka ah kufsiga ee ansixiyeen golaha wakiilada Somaliland muxuu ka qaban karaa yaraynta tacadiyada kufsiga. xeerkan dadka ka shaqaynayay ee ka soo shaqeeyay haddii ay iminkana ka shaqeeyaan garsoorkiina uu nagala shaqeeyo way yaraanaysaa cidina maxaan ku dhahdayay tacadii dambe gelimaysa. kooxaha ololeeya ee Tanzania oo dhaleeceeyay xarig loo geystay 5 gabdhood oo arday ah oo uur leh iyo waalidiintooda. wararkii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan barnaamijka uu soo saaray Maxamed Maxamuud Cadde anigoo aadan Salaamiinana idin soo jeedinayo dunida iyo maanta.